ciidanka ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay Bashiir Cali Xasan oo xaaskiisa horey ugu dilay magaalada Muqdisho. Ciidanka ammaanka oo maalmahan ku daba joogay Bashiir Cali Xasan ayaa waxaa ciidanka ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen kadib markii isagoo ku dhuumaalaysanaya xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ay gacanta ku soo dhigeen. Bashiir Cabdi Xasan ayaa horey xaaskiisa 4tii bishan Juun ay ku guda jirno ku dilay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Salaado Cali Faarax ayuu ku dilay degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho kadib markii uu madaxa bir kaga garaacay sida ay xaqiijiyeen ehelada oo la hadlay warbaahinta. Iyagoo ka jawaabaya, ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen eedeysane Bashiir Cabdi Xasan oo ku dhuumaalaysanaya xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho markii howlgalkan ay sameeyeen ciidamadu iyagoo kaashanaya dadka deegaanka ayaa gacanta lagu soo dhigay, kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga gaar ahaan hay-adda dambi baadhista CID-da ee magaalada Muqdisho. Afhayeen u hadlay ciidamada booliiska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay cadaaladda marsiin doonaan wixii sharcigu ka qaban heli doono kadib markii ninkaasi lagu eedeeyay inuu xaaskiisa kasbareera u dilay. Dadka ehelada Salaado ayaa codsaday in cadaaladda ay hesho Salaado, iyadoo oo sheegtay bay dhaheen in uu si xaqdarra u dilay gabadhooda. Iyagoo la hadlay warbaahinta markii ay aaskeeda ka qayb galayeen magaalada Muqdisho. Ninkan Bashiir ayaa waxaa dadka deegaanku ay sheegeen inuu macallin ka ahaa iskuul ku yaala degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho, iyada oo dadka ninkan yaqaanaana ay horey u sheegeen inuu ahaa nin aad u afgaaban oo macallin ah. Waxay ku sifeeyeen dadka deegaanku inuu ahaa nin fiican, arrintanna ayba ku noqotay lama filaan sida ay sheegeen dadka deegaanka degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho. Bashiir oo 4tii bishan ku dilay xaaskiisa degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho ayaa hadda cadaaladda la horkeeni doonaa maalmahan soo socda sida ay sheegeen booliiska Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.